بسم الله الرحمن الرحيم وسم تركي اسكول مقالة مقدشو اسكول باللغة التركية maanta waxaynu ogeysiin inaynu bilaabeyno buug cusub buugaas oo Yedeklim ama Yunus Emre waa buug aad iyo aad u muhiim ah buugaas oo ka caawin doona inaad barashada luqadda Turkiga cashiradii Turkiga haddii aad joogto Turkiga buugan ayaa inta badan laga qaata inkastoo luqadda Turkiga ay isku mid tahay hase yeeshee mar waliba waxa ay ku muhiim buuga aad xiisada ka qaadanayso in af Soomaali lagu sharxo cashirkan wuxuu ka soo gaari doonaa channelkeena page-keena iyo waliba meelo waliba oo aynu baraha bulshada ku leenahay haddii aad aragto fadlan haddii channelku uu yahay subscribe inoo saar like-ta inoogu dadaal barnaamijkana inoo faafi haddii aad kala socoto page-ka bal fadlan page-ka share iyo like-ta inoogu dadaal taa anagu waxay inoo tahay dhiirigelin adna sidoo kale waxay kuu tahay inaad cashiradii hesho dadkeena Soomaaliyeed ee jooga dalka Turkiga ayaa naga codsaday in channelka cashir buugaagtan oo dhameystiran aan soo gelino channelka taas oo aynu ka caawin doono inay luqadda Turkiga si fudud ku bartaan ayagoo xaggaas joogo haddii aad u baahan tahay inaad luqadda Turkiga qaab online ah aad ku qaadataan sidoo kale waad inala soo xiriiri kartaa adigoo kontaktigaadii wax wada dhan inoo soo reebi karo amaba video kolka aan dhameynayo kontaktiyada iyo meelaha aan idin sheegi doono ayaad igala soo xiriiri doontaan insha Allah luqadda Turkiga runtii markii la joogo dalkeena hooyo mar waliba luqad la barto sida uu sheegay rasuulka waxa waaye waxaad ka badbaadaysaa sharta qoomkaas sidoo kale intan qofka barto luqadaha wuxuu qofka kale kaga fiican yahay number 1 waa adigoo haysto laba dhalasho maxaa yeelay dalka aad luqadiisa taqaano dhalashadiisa waad haysataa oo ma aha wadan aad marti ku tahay sidoo kale inta dalka Turkiga waxaynu nahay walaalo waxaynu nahay jaar waxaynu nahay xiriir diblomaasiyadeed mid dhaqaalo iyo waliba mid ganacsi ayaa in naga dhaxeeyo sidaa hadda dala socoto dalka Turkiga daawooyinka hadda Soomaaliya ee tayada leh waxaa laga keenaa dalka Turkiga dharka tayada leh sidoo kale waxaa laga keenaa dalka Turkiga oo ay ugu horeyso shirkadda ganacsi oo dhar Turki ah keento sidoo kale waxaa dalka Turkiga inooga yimaado qalabka guryaha sidoo kale marka mar waliba adiga waxaa dan kugu jirtaa wadanka luqad uu xiriir kala dhaxeeyo hadii maanta China uu xiriir fiican nagala dhaxeeyo dakhligooda ama wax waliba oo yaalo halkaas Soomaaliya loo soo dhoofiyo waxay danta noogu jirtaa inaan luqadooda barano kadibna aynu ganacsi xiriir sameeyno dadka qaar waxay isleeyihiin luqadda Turkiga ama luqadda Hebel luqadda Ingiriiska luqadda Carabiga ama luqad Hebel inaan barto maxay faa'iideynaysaa marka lambar 1 horta waxaad ogaataa inaad adiga wax ku qabsan karto maanta waxaan ku faraxsanahay in luqadda Turkiga ay baranayaan dhakhaatiirta magaalada Muqdisho ugu caansan oo aan doonayn inaan sheego magacyadooda maxaa yeelay waxay u bartaan daawadii waxay dhaheen waa Turki marka qofka daawada aanu qoreyno annagoon aqoonin ma rabno qofka inaan siino waxaan rabnaa daawada ku qoran tahay magaca ama qoraalada ay tahay Turkiga intaan macnaysan karno aan qofkii aan u sharixi karno hadda daawooyinka China iyo Bangladesh hadda waxaas inta badan waa laga tagay daawada waa Turki marka waa intaa waa hordhicina way buugan waa buug aad u muhiim ah waxaan rabaa buugta dhan in waxaan rabaa aan soo geliyo channelka iyo waliba baraha bulshada meelaha aynu ku leenahay marka sidaa loo ogaado insha Allah